سلام كدب waxaan rabaa inaan aad uga mahad celiyo xisbiyaasha qaran ee halkan taagan kalsoonida ay igu doorteen inaan hogaamiyo madashan qaran waxaan u ballan qaadaa insha Allah tabaaraka wa tacaala sida ugu wanaagsan oo hawsha la asteeyay loo gaari lahaa inaan hogaamiyo intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan wax yar dul istaago asbaabta loo aasaasay madashan waxa la wada socotiin axsaabtu dalkeena xilli dheer kama jirto laakiin haddana waxaa loo aasaasay inay abuuraan jawi siyaasadeed oo lagu tartamo oo ku dhisan nidaam is-ixtiraam iyo dimuqraadiyad ku dhisana si looga gudbo marxaladda adag ee 4.5ka loona gaaro marxalad baahsan ee asaaskeedu yahay dadku inay isu raacaan aragti siyaasadeed ayadoo taasu ay jirto oo cid kastaba ay ku mashquulsan tahay ama xisbi kasta oo ku mashquulsan yahay waxyaabihii loo aasaasay haddana waxaa soo baxday in uusan jirin waxa aan ka hadlayno inaysan muuqaninba doorashadii waxaa ka dhiman sanad iyo in yar ilaa hadda ma muuqato nidaamka doorasho ee aan doorashada ku geli doono ma jirto xurriyaad axsaabta siyaasadeed iyo dadka Soomaaliyeedba ay ku dhaqdhaqaaqi karaan oo ay ku guda karaan waajibaadkooda qaran waxaa la socotiin magaalada Muqdisho haddii la damcayn wax laga sameeyo waa inaad dawladda fasax ka hesho arrintaasna waxay ka soo horjeedaa dastuurka waa qayr dastuuri axsaabta siyaasadeed iyo qof kasta oo Soomaaliya dastuurku wuxuu xaq u siinayaa inuu meesha doono iyo cidda doono iyo waqtiga doono inuu qabsan karo shir madashan oo aad ogtihiin aragtidaas ay xambaarsan tahay oo ah dadka Soomaaliyeed inay helaan nidaam cadaalad ah waxyaabay u taaganta waxa kamid ah space-kaas in la helo qofka Soomaaliga inuu helo xurriyadiisa iyo xuquuqdiisa waxna waa ra'sumaal waxna waa sharaf walaalka ama walaasha sharaf waa ku leedahay laakiin hadaa ka weysamo weydii kartid laakiin xuquuqdaada iyo xurriyaadkaaga kama tanaasuli kartid waxaan wada ognahay dalkan asbaabta u burburay xuquuq iyo xurriyaad la waayay waxa u burburay ku takrifal awoodeed qofka la aamino ee lagu aamino xil qaran ee u adeegsada awoodiisa si khaldan ee ku dhibaateeya dadka kale waxa ay dhalinayso waa naqaana nasiib darro 30 sano kadib inaan wali afkaartii xambaarsannahay waa arrin aan lagu farxin waxaan hubaa dadka Soomaaliyeed dawladnimada inay jecel yihiin waana tan keentay dulqaadka ilaa maanta ay dul qaadanayaan waa tan keentay bisaylka maanta xisbiyadu intay isugu yimaadaan ra'yi urursan ay ku waajahaan arrintaas dadku waxay yiraahdaan xurriyaadka iyo xuquuqda leesma siiyaa waa la soo qaataa annagu hadda maanta waxaan u arkaynaa si practical waxaan filaynaa runtii qof walba Soomaaliya inuu xurriyadiisa iyo xuquuqdiisa dood la'aan helo laakiin waxaan noo muuqata inaan u baahanaa mar kale inaan u istaagno xuquuqdeena iyo xurriyaadkeena mas'uuliyaduna waxay saaran tahay cid qayb ka geysan karta xisbiyada madasha qaran waxay u taagayeen horta kow arrintaas dadku xuquuqdooda iyo xurriyaadkooda inay helaan laba waxay u taagan yihiin in dawladdu ay ku dhaqanto sharciga oo Soomaaliya laga hirgeliyo waxa la yiraahdo sarreynta sharciga ummad waxa lagu ixtiraamaa sharcigeeda sida uu yaalo xuquuqda oo bixinaa iyo sida ay ugu dhaqmaan dastuurkii yaraaya aan qorannay oo ku meel gaarka ahay haddii meel la iska dhigay waxaan u malaynaa arrintaas inay qof kasta Soomaaliya waajib uga dhigayso inuu u istaago si dastuurka loogu soo celin lahaa positionkiisa halkaas waxaan rabaa wax yar inaan ka jaleeco nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo aan huba inaan wada jecelnahay Madiina markuu tagay waxa deganay Madiino niman la yiraahdo mushrikiin oo waxba aaminsaneen ama waxba aaminsaneen ficlan laakiin diin rabbaaniya ma aaminsaneen oo kitaab samaawi ma aaminsaneen waxa jooga nasaara waxa jooga yahuud waxa jooga muslimiin nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wuxuu u sameeyay wax la yiraahdo wathiqatul Madiina
وثيقة المدينة أو أدقنتا دستورك أيو أسمي أو قف والبو مدينة دقن حقوق سينيس عقلي أن مسلمين تو ما انتجره إي عقلي سؤال يوكل دوانان ماشا سفيرية قفك يهودك قفك مسيحيك قفك مسلمك قفك مشركة وحيلين حقوق سمن أو مدنية كن أفر بقولي أفرتن يجوج سنة كذب أنا ومسلمين أنا كدودنا أرنتاس عيبين نقط الدنيا ده هرو مرتي وحي هرو مرتي حل شيء بس إن الدستور لا ده هاي دستور كاسنا يراعان هرو مركو معها حب هرو مركو معها دقالة هرو مركو معها أقون كله هرو مركو الدستور أن لقوا رقمه مثال ربع أنا هذه العراق حلقة صدام حسين دولة ضعيفة ما هي دولة حقوق بدن دولة حقوق بدن محيو بربرت دستور كم مجرم دستور لقوا مرق مجرم سوريا waxay ka mid tahay adduunka meelaha civilizationka ugu horeeyay ka mid maxaa ka jira maanta ma aqoon la'aan haysa ma thaqaafa la'aan haysa ma dhaqaale la'aan haya ma mushkiladu waa mushkilad dastuur wahalu majra annaga waa run dad masaakiin aan nahay laakiin waxaan naqaanaa danteena waa soo dhibtoonay 30 sano dhib ku soo jirnay ma rabna inaan u laabano waxaan rabnaa buugaas yar oo noo yaala inaan ku kala dambayno marka madasha waxyaabay u istaaganta waxa waaye sarreynta dastuurka maanta madaxweyne farmaajo dalka madaxweyne ka waxaan rabnaa inuu hirgeliyo aan rabnaa oo sharaf ku qaato dastuurka oo la garab maro sharaf lagu ma keeni karo nuqdada saddexaad waxay tahay doorashooyinka marka siyaasadda doorashadu ay soo dhawaato haddaan la helin aragti siyaasadeed ee dadka siyaasiyiinta ay ku midaysan yihiin dalku wuxuu galayaa fawda ma naqaan ilaa hadda doorashada soo socota wax lagu galay dhinaca dawladdu waxay leedahay kulay inaan maqashana umaleynaa one man one vote inta laga sameeynaa one man one vote laabadiisi ma la qaaday amnigii ma la sugay dadkii ma la tirakoobay sharciga ma la ansixiyay wax la isku waafaqsan yahay ma jiraan مثلا سيده قدوميه عثمان او شيغاي كوخ لا يرا ودنينا انت لا اروريا دورشده غلاي انغنا waa amrayna waxa u maleynaa in inta iskaweyna we never accepted that waxa la rabaa dawladdu indhaheeda inay furto doorasho laga wada tashaday oo lagu heshiiyay in dalkan ka dhacdo sababta aan leeyahay waxay tahay wixii loo diray ma fulin dawladda waxaa laga rabay dalka in la xoreeyo al-shabaab laga xoreeyo dalka la tirakoobo doorasho sidaas lagu galo ma la sameeyay lama sameeyay annaga dariiqyada luqluqa ma aqbalayna waxaan aqbalaynaa dariiq cad dalkan iyadoo duruufta intaan ka alagtaa doorashooyina la soo qabtay waa lagu heshiiyey madaxweyne xasan sheekh waa kana saldhig maxaad meesha booliska oo doorashada lagu qaban jiray iskool buluusiya annaga dhaana doorashada ma lagu qabanayo maxaa yeelay taliyaha booliska waxa uu dhahay madaxweynaha ku taageerayna si dadka dhan madaxweynaha hadda jooga kamid asa kamid ah marka wax mugdi ku jira ma qaadanayna annaga dalka doorashada u taaganahay inaan tartanaan rabnaa laakiin waxaan rabnaa waxa aan ku tartami karnaa inuu madaxweynaha la yimaado isaga dawladdiis warkaas waa la fahmaa umaleena colaad ma jirto waa accept garayna markii la doorto garbahan ka istaagna masaga noo yeerto hal taageeraan dhama asaga naga codsaday qof kasto ka soo horjeedo waxaan dhijirna madaxweynaha aan ku keeno war u kaadi madaxweynaha 4 sano dhamaysto ma jirto shakhsi ma aha qabiil ma aha waxaan rabaa si clear ah u ilaahdo waxa waaye system dawladnimo oo Soomaaliya ay leedahay qof walba Soomaaliya waxaan rabnaa inuu dareemo dawladda inuu dawladdiisa tahay dhibaatooyinka shacabka lagu haayo jidadka la xiray iyo harassmentiga socda waxaan rabnaa dawladdu si degdeg ah inay wax uga qabato waxaan ognahay saxafiyiintii Soomaaliland waa la xiray Soomaa maxaa lagu xiray dad mudaaharaad ay soo tabiyeen Soomaa wa xuquuqda saxaafadda xorriyadka saxaafadda kuwa kale waxay ku xiran yihiin baydhabo waxay u xiran yihiin dawladda ma aha maamulka inuu xiran yahay xogta hayna waray tabiyeen dad odayaal ay sheegeen ilaa hadda waa ku xiran yihiin maxay ku xiran yihiin dalkan wuxuu u dumay cadaalad darro
cadaalad darro ma aqbalayno inta aan noolnahay cadaalad darra nafteennana kama ogolaanayno qof kalena kama ogolaanayno waxaan rabnaa taas inay aad u fahamto dowladda sharaf qof madaxa waxaa ugu filan inuu cadaalad sameeyo ilaahay in loogu dhowaado wax ka muhiimsan maanta la joogo cadaalad ma jiraan war dalkan cadaalad darraa burburisay dadkaana waa kuu soo baxeen waa ku taageereen xoolo kuma bixin waxa ay rabeen dowladnimo ahayna kugu taageereen aawa dowladnimada isweydi dalkan siyaa xukuma horta wixii dhaca waxaa lagu leeyahay madaxweynuhu ma oga yaa xukuma dalka annaga ninka madaxweynuhu yaa ku wareejisa adiga dalka madaxweyne anna madaxweynaha la xisaabtamaynaa dadkan kaloo hoos laga sheegaayo shaqo kuma lihin annaga qodobka afraad ay maray Soomaa qodobka afraad waxa waaye raga iiga horeeyay laakiin inaan sii bayaaniyo rabaa nidaamka federaalka almuslimuuna ala shuruutihim Soomaalidu intay isu tagaan aniga kamid ma ahayn madaxweyne xasan kam inta qof jooga kuma jira in bagaati intay isu tagaan waxay soo doorteen nidaam federaal aniga dadkii diidanaa kamid ah nidaamka federaalka qabo raabish waay kan ma fiicna laakiin dadku waxay ku heshiiyeen bedeli karto heshiis waxa lagu jibi karaa heshiis kale nidaamka federaalka hal ixtiraam waa ognahay waxa dawladdu ay ka wado maamul goboleedyada ka ra'yi duwan in la kala ra'yi duwanaado dawladnimada ka mid ani waxaan aaminsanahay dawladdan aad u nasiib badanta waxaan xasuustaa shirkii koobaad ee lagu qabtay London ee dawladda iyo maamul goboleedyada loo qabtay maamul goboleedyadu si aan caadi ahayn u taageereen dawladda waa garab istaageen dhabarkiisa joogtay madaxweynaha kalsoonidii ay siiyaan maanta xagee maraysaa kuwa aamusana xanuun ila aamusan yihiin waa huba shaki xataa iyaga ma jiro kuwa kalena waa cadeystay waxaan walaalo waxaan u shaqo maahay jooji ani madaxweyne xasan waxaan goobjoog ahay shirki garawe oo lagu dhexdhexaadinayo madaxweynaha iyo madaxweyne goboleedyada fursad habiya miiska loo saaray maanta meesha aragtay maraysaa waxay maraysaa maanta in laga abaabulo mudaaharaad Puntland iyo Jubbaland oo lacagta qaranka maxaa ugu bixinaysaa meeshaas madaxweyne maxaa looga baahan yahay in mudaaharaad la abaabulo waa kala ra'yi duwantiin soo imaada fadhiista heshiiya that's all hawsh intaas waa ka sii dheerta hawsh intaas waa ka sii dheertahay ani waxaan rabaa inaan aad u cadaado saraaxan rabaa maanta aniga ma la socotiin ciidamo ajnabiya in axmedowna la rabo in lagu soo qabto ma la socotiin hadda ka hor markii oo doorashadu dhacaysay shalama socotiin billaahi calaykum arintaas sida dhici lahayd maxaa dhici lahay dagaal qabiil aan weligiis dhamaana dhici lahaa boqol jirsada ma idin la tahay inaan ka aamusi karno kama aamusi karno farmaajo axmedow waa ii sameeyeen qabiilnimo aniga to be clear musa qof warka qabaa jira laakiin dawladdu inay awoodeeda diblomaasiga u adeegsado inay qof kala aamus ma la aqbali karo wax la qariyo waxa la yiraahdaa quruna ku jira ma qarinayno banaankan la taagana xisbiyada qaran ee halkan isugu yimiday waxay ka hadlayaan waa xuquuqda iyo xurriyaadka dadka xuquuq siyaasiya xuquuq nololeed xuquuq dhaqaale wama ila dalik dalkan magaalada muqdisho dhaqaalaheeda waa dumay muxuu u dumay meel walba waa la xiray nin akhyaar ah dadka ugu waaweyn aan intuu yimid xornimo waa lugay aniga maxaa dhacay baawar meelan ku wada male hogaamiye kooxda markay ay joogeen iyo hadda dadku waxay leeyihiin hogaamiye kooxda markay joogaan afcinaad waxa laga yaabaa mararka qaar in istiraadin waa mubaalaqa dadka ay sheegay maxaa yeelay dhaqdhaqaaq la ogol yahay jiray oo lala noolaaday dawladdii aan gacmaheena ku dhisnay waxa soo dulmiya dadka inay ku sameeyso aan ka aamusno anaga dambi nagu naqay arintu madaxnimo doon ma aha kursi ka riixasha ma aha qof nacayb ma aha qof jacayl ma aha waa ilaalinta dastuurka oo dawladdu ay ku dhisantay that's all marka waxaan rabnaa Soomaaliya nahay mas'uuliyadda Ilaahayna saaray qof walba wax garad inaan wada dadaalno dhalinyarada aan hortaagan oo wiilasha gabdhaha leh khatarta iyaga u horeeyay meesha xabada ku dhacaysa iyaga taga jidadka iyaga jira haddana maanta xorriyadooda waa waayeen askartii dalkan soo dagaalantay mid la arkaba wixii la rabaa lagu sameeyay iyadoon sharciga loo marin
yaa samaynayo dad shala markaan waxa dhacayo guryahooda jooga oo shaqaysanaya ilmahooda la jooga cadaalad miyaa waxaas qof kastoo dalkan wax ka soo qabta waxaa la yidhi tuug waaye war annaga tuuga maahin dad sharaf lahaan nahay dalkaanaan u soo shaqaynay haddana waa u taaganay maamul wanaagii waxbaa naloo akhriyaa hadda hanti dhowraha guud muxuu soo saaray markii ugu dambaysay marna wuxuu soo saaray umlana 40 milyan 42 marna 18 jihaaskii dawladda ka shaqaynaya inta soo saara inta aan loogeyna tirada ka badan soo ma aha annaga waxa aan rabnaa asal ahaan maamul wanaag waa mid aan ka hadlaynaa maamul wanaagaba waxaan rabnaa marka waa run dawladdu culaysay waa haystaan laakiin gaabisaa jira waxay ka gaabisay dariiqii saxda ahaa oo dawladnimada waa ka leexatay dawladnimada ma raba inaan dhexda dhigo aniga muxuu yahay dariiqaas waa ilaalinta dastuurka waa ku dhaqanka dastuurka oo haddaanan dastuur ilaalinayn maxaan ku wada joogaynaa shalaba ilmaadeeraan ku wada joogi jirnaa matiyaan ku wada joogaynaa soomaalidaanu qabiil waa ka soo daashay waxay rabaan dawladnimaduna waa inay ahaataa mid wixii lagu heshiiye ku qotonto inay ahaataa loo baahan yahay marka waxaan rabaa inaan idhaa madasha xisbiyada qaran albaabkeedu waa furan yahay calaa masracihi u furan yahay wax shakhsiya kama hadlayna waxaan ka hadlaynaa wax qaran arrintaas ma caddo xolaad ma qabno laakiin mabaadi' aan aaminsanna waxaan aaminsanna qofka Soomaaliga inuu xuriya inay waajibta qofka dambi gala sharciga eedeynaya mararka qaar waxyaabaha dhaco khatarta waxa kamid ah madaxda dawladda qolo aan shaqo ku lahayn dadka inay xirto oo dadka in la xiriso lagu xiraa waxa lagu xiraa qofka inuu dambi galo hay'adda shaqada kulada soo aadayso xeer ilaalinta qofka xiris maxkamadda xiris aan dhaho xeer ilaalinta eedeynaysa yaa xiraaya maxkamadda xiris qof la iska xiri kara ma jiro haddii dawladnimo laga hadlaayo haddii loo noqonayo tii hore oo nin walba ninka ka xoog badan xirto wax kale waa taas ka hadlayna anaga taas waxyaabaha ka dhaca dalkan ay ka mid tahay dawladda awoodeedii iyo hantidii qaranka waxaan aaminsanahay inay u sakharto dad inay ku caydo Facebook wiilal iyo gabdho guriga jiifo oo Yurub iyo Mareykan laga keenay oo dadka caaya maxaa u sameynaysaa waxaas dawladnimo ma ku imaanaysaa waxaas ma ku imaanaysaa mase u malaynaysaa caay inuu la jooji karo abadan waxay ka mid tahay habka dictatornimada ay ka mid tahay qofka in la cabsi geliyo in sumcadiisa la dilo in la ciriiriyo in la handado qaar la wararo guriyahooda lagu wararo iyagu habeen joogaan sax wala la dawladdu dariiq kale ay martimo weys Cabdiraxmaan ku fanad Cabdiraxmaan waxaana gashay xiraalinta loo geeyay maxkamadda loo geeyay maxkamadda tag easy wakaratan Soomaa بالله عليكم ما كوفي كرتان وليجين waxa ka dhala kara arintaas dawladdu waxa ay sameynayso waxa ka dhala kara kama fikirto arintaas waa arin khatar madashaanu waxay u taagan tahay waa dawlad wanaag waa dawlad dhisid waa midan shacabka Soomaaliyeed inay tilmaanto dariiqa saxda ee ummadana ay ku guuleysan karto inay tilmaanto dariiqa khatarta ee ummadana ay dhibka ka soo gaara shalay maanta inaysan ku laaban waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto fursadan inaan u tacsiyeeyo dadkii ku waxyeeloobay ama ku dhintay ama ku dhaawacmay ama hantidooda ku waayay ama ku barakacay fatahaada webiga Shabeelle gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo magaalooyinka kale ee dhibaatadu gaartay inta dhimatay Allah naxariistaan leenahay inta dhaawac wax ku gaarana ku dhaawacanta Allah caafiyo inta ku hanti beesha Ilaahay meel khayr ah waxa ka siiyo dadka Soomaaliyeed ee cid kasto wanaaga jecelna ha caawisan leenahay waa mudan yihiin maanta waa walaalaheen dhibaataysan oo kalmadeen u baahan ayagana Allah ka gacanta Ilaahay yaa buuxday Allah ku deeq ayagana insha Allah tabaaraka wa taala mar kale waxaan ka mahad celinayaa runtii sida wanaagsan iyo dulqaadka iyo kartida bahda saxaafadu
ay khatarta ugu bareerto habeen iyo maalin marxaladaha adagoo aad soo marteen waxaan idin rajaynayaa guul waxaan rabnaa in adunkuna xur aan naqatiin annagoo aan xur naqanno qof kastoo Soomaaliya xur u ahaado waxa sharcigu siinaya bas wax kale ma jiraan waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.